السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran channelka Samna Kasta Official. fadlan channelka haddaa ku cusub tahay subscribe noo saar, kambalelkana furo si markasta ay kuu soo gaaraan muuqaalada xiisaha badan ee kaga diyaarino aflaanta markaas xiisaha badan ee soo baxaya. saaxiib waa ku mahadsan tahay haddii aad hore noola joogtay channelka. ka codsanayna muuqaalkeena noo leegarayso, sidoo kalena sii share garayso si uu gaaro saaxiibo badan ay nagu soo biiraan channelka. ana ku mahadsan tahay. barnaamijkeena maanta waxaa kusoo qaadanaynaa afar filim oo waaweyn kuwaasoo la filaya inay soo bixi doonaan dabiiqada sanadka 2022 iyo horaanta sanadka 2023. filmaantaas waxaa ugu waaweyn filimka lagu magacaabo Adiburush oo hogaamiyay ninka lagu magacaabo Birbaas. sidoo kale filimka labaad aan soo qaadanayna waxaa lagu magacaabo Bedia oo hogaamiyay ninka lagu magacaabo Farun Dhawan. sidoo kale barnaamijka waxaan kusoo qaadanaynaa filimka lagu magacaabo Three Plan oo hogaamiyay ninka lagu magacaabo May Stade Danush. sidoo kale filimka xiga soo qaadanayna waxaa lagu magacaabaa Firuman waxaana hogaamiyay ninka lagu magacaabo Karthi. haddaba filimkan waxaan ku bilaabaynaa filimka lagu magacaabo Firuman oo hogaamiyay ninka lagu magacaabo Karthi. sidoo kale filimkan waxaa ku wehelay lagu magacaabo Aditi Shankar oo abooya ninka lagu rugcadaaga caanka ee Shankar. xidigtaan filimkeeda ugu horeeyay markaas sameynayso Aditi Shankar waana filim markaas lagu soo caanbixinayo gabadhan, waxaana doorka caawinaya ninka lagu magacaabo Karthi oo gabadhan soo caanbixinayo markaas dadka markaas shacbiyad balaaran u yeelay gabadhan. sidoo kale filimkeeda ugu horeeyay waa filimka Firuman oo markaas tiyaatarada ama markaa loo saari doono gabadhan, waana filimka ay ka soo muuqan doonto waxaana garsiin doona ninka lagu magacaabo Karthi. sidoo kale filimka producer waxaa kamid ah Suuriya iyo Jatika oo markaas kamid ah familka Sifa Kumar oo Karthi markaa walaalkiisa. sidoo kale filimkan xiisaha badan waxaa ka soo muuqan doona ninka lagu magacaabo Barkash Raj oo Soomaalida u taqaan Serabta. sidoo kale filimkan xiisaha badan waxaa door ka qaadan doona ninka lagu magacaabo Suuri oo markaas fankaas iyo laga dambeeyo Tamilka oo ka soo muuqda dhanka shaatirada oo door xiiso badan filimka ku leh. sidoo kale filimkan xiisaha badan doorar muhiim ah ku leh ninka lagu magacaabo Shankar oo director ah oo door appearance ama special appearance filimka kaga soo muuqan doona. sidoo kale filimkan xiisaha badan waxa lagu daawan doonaa luqadda Tamilka oo kaliya, waana filim dhameystiran markaas ku jira action iyo madadaalo dhameystiran. film aad looga shaqeyn doono filimkan waxaa directorka ninka lagu magacaabo Mutala oo markaa filimada Tamilka inta badan sameeya. filimkan xiisaha badan kusoo laabanaya ninka lagu magacaabo Karthi. filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu ahaa filimkii Kaithar daawa sanadkii 2019. haddana actorka mashaariic fara badan ayaa u diyaariyay. mashruuciisa ugu horeeyay waa filimka Firuman oo soo bixi doona filimkan August 31 ayaa filimka tiyaatarada loo saari doonaa xidigan. sidoo kale September actorkan waxaa tiyaatarada loo saari doonaa filimkiisa Bunyan Silfan Part 1 kaasoo la wadaan Jian Fikram iyo Jayam Rafi, waana filim actor badan la iskugu keenay. haddana xidigan 31 August ayaa filimka tiyaatarada loo saari doonaa. sidoo kale filimka waxaa laga yaabaa in dib loo dhigo maadaama 9 September uu soo bixi doono filimkiisa Bunyan Silfan, ama filimkan la geeyo bilaha October iyo November ayaa laga yaabaa filimkan in markaas la geeyo. asxaabta filimkan wixii kasoo kordhana waa la soo siin doonaa halka ayaa kala socon doontaan wixii faahfaahin ah oo markaas filimka kasoo kordha. sidoo kale filimkeena xina waxaa lagu magacaabaa Three Plan waxaana hogaamiyay ninka lagu magacaabo Danush. sidoo kale filimkan waxaa ku wehelay xidigta lagu magacaabo Nithya Menon. sidoo kale filimkan waxaa door muhiim ku leh ninka lagu magacaabo Barkash Raj. sidoo kale gabadha lagu magacaabo Raashaqan oo markaas ka timid dhankaas lagu filimkan door adag ay ka qaadan doontaa. waa sida markaas wararka ay ka soo baxay dhankaas Tamil lagu sheegay filimkan waxa ka soo muuqan doonta gabadha lagu magacaabo Raashaqan halka ay door adag ka qaadan doonto gabadha lagu magacaabo Nithya Menon oo markaas shabakadaha kala duwan ee markaas la shaqeysa haddii noqon lahayd koonfur Hindi iyo Bollywoodka. xidigtaan shabakadaha kala duwan ee markaas fanka Hindi waa ka soo muuqataa, waana gabar markaas talentigeeda aad u sareeyo jiliinkeeda markaas shacbiyad fara badan ku leeyahay. sidoo kale shabakada kala duwan markaas heshiisa kala dhaxaysa gabadhan. sidoo kale filimkan xiisaha badan waxaa kusoo laabanaya ninka lagu magacaabo Danush oo markaas filimadiisa ugu dambeeyay markaas OTT-ga loo saarayo xidigan. waxa filimada OTT-ga ugu dambeeyay markaas loo saaray waxa ugu dambeeyay filimkii Karna oo markaas 2019 tiyaatarada loo saaray xidigan. wixii ka dambeeyay waxaa loo saaray OTT-ga. filimkiisa ugu dambeeyay wuxuu Atrangi oo markaas sanadii 2022 kala soo muuqday filimkii Mr. Bond oo markaas caawinaya actorkan oo laga daawado barta Disney Plus Hotstar. filimkaas ayaa ugu dambeeyay xidigan. sidoo kale maalin 22 July filimka The Gray Man ayaa ka dambeeyay markaas door muhiim ah ama door
yar oo markaas kulaha The Gray Man. sidoo kale actorkan wuxuu noqonayaa filimka oo markaas uu kusoo laabanayo xidigan oo tiyaatarada loo saari doono. filimkan waxaa directorka ninka loogu magacaabo Mithran Jawan. sidoo kale filimkan waxaa distributed ama cajilaha qaybinaya shirkadda lagu magacaabo Redcan Movies. sidoo kale filimkan waxaa lagu daawanaya luqadda Tamil oo kaliya. sidoo kale filimkan waxaa iskugu jira musical comedy drama waana filim dhameystiran kaasoo leh heeso sidoo kale shactiro iyo drama sheeko markaas aad u wanaagsan. filimkan waxaa sheekada qoray ninka lagu magacaabo Mithran Jawan. sidoo kale dhagta agaansi kan lagu qaadan doonaa. sidoo kale shirkadda lagu magacaabo Kalanithi Muran ayaa filimkan maalgelinayso. sidoo kale Sun Pictures ayaa filimkan wax kala maalgelinayso. sidoo kale shirkadda Sun TV ama Sun Pictures loo yaqaan ayaa filimkan maalgelinayso ama qayb ka qaadan doonta. waana shirkadda ugu weyn marka la joogo dhankaasi Tamil oo filimada kala duwan markaas maalgeliso. actorkan waa actorada markaas loogu jecel yahay dhankaasi Tamil. sidoo kale actor markaas talentkiisa heerka sare markaas yahay markaa ficilada markaa sameynaya laga dareemin inuu markaas yahay actor markaas koonfuriyadii kasoo jeeda. sidoo kale filimada Bollywood xidigan oo kasoo muuqda waxaa sameeyay VIP2 markaas la sameeyay gaar lagu magacaabo Kajal. hadda markaas wuxuu aaday dhankaasi Hollywoodka waxaana sameeyay The Gray Man. actorkan wuxuu noqday actor markaas shabakadaha kala duwan ee markaas dunida ka jira oo la soo shaqeeyay. waana actor markaas jilinkiisa markaa heer sare yahay xirfadiisana markaas uu ku meel maro ninka lagu magacaabo Dhanush. haddana filimka lagu magacaabo Tirutitapalam waxaa loo daawan doonaa August 10 2020 ayaa filimkan tiyaatarada loo saari doonaa. xidigan asxaabta filimkan waxay kasoo kordhana waa la soo doonaa halkan ayaan kugu soo gudbin doonaa wixii faahfaahin filimkan kasoo kordha halkan nagala socda. asxaabta haddii aan marka aadno dhankaasi Bollywoodka waxaa soo qaadanayna filimka lagu magacaabo Bedia oo hogaamiye ninka lagu magacaabo Farooq Dhawaan. sidoo kale filimkan waxaa ku weelis kooda lagu magacaabo Kriti Sanon. sidoo kale filimkan waxaa door muhiim ah ninka lagu magacaabo Abhishek Banerjee oo markaas ku caanbaxay dhanka comedy ama shactirada. sidoo kale filimkan waxaa ku jira ninka lagu magacaabo Deepak Dobriyal oo inta badan kasoo muuqda filimada Bollywoodka oo markaas inta badan la buubuulin xidigan. sidoo kale filimkan waa filim xiiso badan oo kusoo laabanaya ninka lagu magacaabo Farooq Dhawaan. sidoo kale filimkan xiiso badan waa filim iskugu jira horror iyo comedy ama shactiro waana filim kusoo laabanaya Farooq Dhawaan tan sanadkii bishii June 2024 uu soo baxay filimka Jogjogjiyo. haddana markaas ku daawanaa Soomaali laga soo dhigay filimka Jogjogjiyo. haddana filimkan ayaa waxa uu soo bixi doona ninka lagu magacaabo Farooq Dhawaan waana filim kusoo laabanayo Farooq Dhawaan oo filim markaas isbedel badan oo isku sameeyay ninka lagu magacaabo Farooq Dhawaan haday noqon lahayd jirahaan iyo haday noqon lahayd dhanka markaas jilinka. sidoo kale xidigta lagu magacaabo Kriti Sanon ayaa markaas shaashada ku ay jilinku soo wada bildhigayaan. waana filim iskugu jira horror iyo shactiro oo markaas actorkan inta badan lagu yaqaan dhanka shactirada iyo jilinka marka heerka sare xidigan oo markaas ku soo bandhigay shaashadaha. sidoo kale filimkan xiisaha badan waxa directorka ninka lagu magacaabo Amar Kaushik oo markaas filmo badan oo markaas laga daawado dhankaas tiyaatarada oo markaas inta badan kasoo muuqda ama directorka noqda. sidoo kale producer waxa ku ninka lagu magacaabo Dinesh Vijan. sidoo kale filimkan xiisaha badan dhanka muusikada ama wax isku bedawriyo ninka labada lagu magacaabo Sajin Jigar oo inta badan filimada dhanka muusikada ama background muusikada tuma. waana filim markaas laga shaqeyn doono ninka lagu magacaabo Farooq Dhawaan oo markaas juhdi badan fariiq badan galiyay muddo hal sano shaqadiisa socotay. haddana filimkan waxaa lagu dhawaaqay xilliga rasmiga la daawan doono waxaana daawan doonaa 25 November waa 2 bil ka bacd 3 bilood ka bacd ayaa filimka la daawan doonaa. bisha 11 ayaa filimkan la daawan doonaa 25keeda waana filim xiiso badan. sidoo kale filimkan sheekadiisa waxaa diyaariyay ninka lagu magacaabo Amar Kaushik oo markaas director iyo markuu isku noqonaya rating ama sheekada qoray. sidoo kale filimkan waxaa laga soo bandhigay kaarto u gaar ah gabadha lagu magacaabo Kriti Sanon iyo Farooq Dhawaan. halka Farooq Dhawaan kaarto markaas laga soo bandhigay holaca markaas indhihiisa laga cabsi qabo markaas filimkan ku jilay horarka oo markaas aad ku soo jeedanaya kaartada markaas laga soo bandhigay filimkiisa Bedia waana filim xiiso badan aadna loo wada sugayo. sidoo kale filimkiisa Jogjogjiyo actorkan waxa uu noqday average waana filim guuleystay. sidoo kale filimkan af Soomaali laga soo dhigay waana daawanay waxaana filim aad u xiiso badan kaasoo lahaa fariinta arrimaha bulshada ama familiga oo markaas filimkan lahaa emotion aad u badan fariin aad u qiiro badan oo markaas labada lamaane markaas isweynayaan kadibna si la iskugu soo celin hal loo gaari lahaa. waana filim aad u xiiso badan filimka lagu magacaabo Jogjogjiyo. haddana filim xiiso badan ay soo wada xidigan
waxaana ka mid yahay xidiga markaas loogu jecel yahay fanka Hindiya, waana aktarada markaas kusoo caanbaxay aktarkan oo markaas jilinkiisa ku meel mara. sidoo kale aktarkan waxaa dhalay ninka lagu magacaabo David Dhawan oo aabbo ah. inta badan filimada uu aktarkan uu saxada la soo koro walaal aabihiis ayaa filimkan garab qaban jiray ninka lagu magacaabo Farhan Dhawan, balse hadda aktarkan lugiis ayuu ku istaagay oo markaas filimada kaligiis ayaa sameynaya. daaratare kala duwan ayaa filimka aktarkan u sameeyay filimo badan. asxaabta filimkan waxay kasoo kordhan waa la soo socodsiin doonaa iyo xilliga markaas lasoo bandhigi doono gooskiisa ama teaserkiisa. halkan kala socda wixii macluumaad kusoo kordha filimkan. haddana waxaa soo qaadanaynaa filimka sida weyn loo sugay kaasoo lagu magacaabo Adipurush oo hogaamiye ka yahay ninka lagu magacaabo Prabhas. sidoo kale filimkan waxaa ku weeliyay gabadha lagu magacaabo Kriti Sanon oo filimkan door adag ka qaadan doonta. dhanka Angelina ama lamaanta ku matalaysan ninka lagu magacaabo Prabhas. sidoo kale filimka doorka xumaanta ama doorka laanimada waxaa qaadan doona Saif Ali Khan oo markaas filimkan door adag ka qaadan doona. filimkan shaqadiisa waa soo ilaatay wax yar ayaa filimkan u dhamaan shaqadiisa. sidoo kale filimkan xisaab badan waxaa directorka Omrod oo ku caanbaxay filimkii 2020 la daawaday kaasoo haatan Haji and the Unsung Warriors. filimkaas uu ku qaatay ninka lagu magacaabo Jadif Khan, bilada loo yaqaan National Awards oo markaas lagu riyoodo dhankaasi oo bixiso dowladda Hindiya. sidoo kale filimkan xisaab badan Adipurush waana filim markaas Saif Ali Khan qaybtii hore ee Haji and the Unsung Warriors laadar awood badan ka qaatay. halkan ninka lagu magacaabo director Omrod qaybtan filimka lagu magacaabo Adipurush oo laadar awood badan ku jilayo. waxaa laga yaabaa doorkii markaas adka oo ku qaatay Haji and the Unsung Warriors doorka adag markaas loo dhiibi doono ninka lagu magacaabo Saif Ali Khan. aktarkan waxa uu ku jiraa solaasho in caadi ah tan sanadka 2020 filimada badan ayaa soo baxay. sidoo kale filimkii Bantia or Bobli oo la daawaday sanadka 2020 filimkaas oo ka fashilmay xidigan. haddana waxaa la filayaa filimka Adipurush xidigan uu ku soo laabto 2020 ayaa ogana filimkii The Unsung Warriors kaasoo noqday super hit weyn. sidoo kale filimkan waxaa lagu kharash gareynayaa ku dhawaad 5 bilyan oo markaas Indian rupees ama lacagta Indian rupees ayaa filimka lagu kharash gareynayaa iyadoo markaas u dhiganta 500 koror ayaa filimka lagu kharash gareynayaa. waana filim aad qiimihiisa ama heerkiisu aad u sareeyo. lacagta ugu badan markaas waxa qaadan doona ninka lagu magacaabo Prabhas oo qaadan doona ku dhawaad 100 koror. lacagtan haddii markaas dollar laga dhigo waxay lagu dhigmataa 63 milyan oo dollarka Mareykanka ayaa filimkan lagu kharash gareynayaa. waana lacag aad u tir badan. waana filimka ugu qaalisan markaas wuxuu noqonayaa sanadka 2023 la sameeyo. waana filim ku soo laabanaya Prabhas tan iyo filimkii Sirade Shyam oo aktarkan ka fashilmay kaasoo noqday disaster aad u weyn. sidoo kale filimkan waxaa maalgelinaya producer shirkadda lagu magacaabo T-Series oo sidoo kale filimkiisii hore Sirade Shyam oo maalgelisay shirkaddan. sidoo kale filimkan waxaa iskugu yimid rag aad u badan. sidoo kale filimkan waxaa door adag ka qaadan doona ninka lagu magacaabo Sunny Singh oo markaas dhankaasi ka yimid Bollywoodka. xidigan ninka lagu magacaabo Sunny Singh waxaa lagu bartay doorka shactirada inuu ka qaato filimada Bollywoodka, balse hadda filimkan wuxuu ka qaadanaya door adag oo aad u xiiso badan. waxaana loo soo bandhigay sheekada markaas doorku ka qaadanayo aktarkan uu ka helay. sidoo kale sheekada filimkan uu ka helay ninka lagu magacaabo Sunny Singh oo filimkan door adag ka qaadan doona oo markaas ka rabsiin doona ninka lagu magacaabo Prabhas. halka filimkan shirkadda lagu magacaabo AI Films filimkan cajaladaha filimkan qaybin doonto. marka filimkan qorshuhu wuxuu yahay in markaas la daawado January 12 2023 ayaa filimkan qorshuhu yahay in markaas tiyaatarada loo saaro ninka lagu magacaabo Prabhas. sidoo kale Prabhas hadda duubis wuxuu ku wadaa filimkiisa lagu magacaabo Salar oo directorka yahay Prashant Neel kaasoo ku caanbaxay sameynta filimka KGF Chapter 1 iyo Chapter 2. haddana xidiga mashaariic fara badan ayuu markaas gacanta ku haystaa. aktarkan waxaa lagu dambeeyay dhanka actionka waxa weeyaan 2015 markaas saaxadda ee Hindiya markaas ku qabsaday Bahubali labadiisa qaybood. sidoo kale 2019 wuxuu la yimaaday filimkii Saho. sidoo kale hadda filimka 2022 wuxuu la yimaaday filimka Sirade Shyam oo markaas loogu baran dhanka jacaylka taasna uu ku fashilmay ninka lagu magacaabo Prabhas. haddana doorkiisa saxda ayuu aktarkan ku soo laabtay waana dhanka actionka. waxaana soo horeyn doona filimka lagu magacaabo Adipurush oo daawan doona January 2023. sidoo kale filimka Salar waxaa daawan doona dabiiqada sanadka 2023 waa sida qorshuhu yahay. asxaabta filimkan wixii ka soo kordhan waa la soo socodsiin doonaa. sidoo kale haddii aad muuqaalka ka hesheen leeg noo saara waana ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.